اعتكافku waa cibaado uu quraanku sheegay في سورة البقرة إلى وكتب الله تبارك وتعالى markii axkaamta soonka laga hadlayay siyaaqeeda waa kii ku yimid dumarka u dhawaanina oo antum caakifuna fil masaajid idinkoo masaajida itikaafsan nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu itikaafi jiray sida saxiixa iyo sunankaba ku sugan bal kamuusan tegin ramadaanka itikaafkeeda marka hore 10 kor oo itikaafay isagoo leelatul qadr raadinaya kadibna tadxuq itikaafay kadibna waxa loo sheegay inuu 10 ka dambe leelatul qadr ku jirto wixii inta ka dambeeyay wuxuu itikaafi jiray 10 ka dambe nabiga sallallahu alayhi wasallam isaga iyo xaasaskiisa kadibna waxay noqotay sunno mutawaaratha oo la kala dhaxlo oo ummadu kala dhaxashay xukumahan marka waa sunno ijmaac way culimada qaar ka soo guurinayaan in la isku waafaqsan yahay inuu sunno yahay ramadaan miyuu khaas ku yahay jawaabtu waa maya laana waxaa soo nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu itikaafay shawaal bish ramadaan ka dambaysa inuu itikaafay waa sugan marka kuma xidhna laakiin waxa uu fadli badan yahay 10 ka dambe bisha ramadaan مسجد مسجد بو شرط كيهاي مسجد الحرام كا مسجد النبوي مدينة مسجد الأقصى حديث باكو صار سيدا شيء لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لكن حديث كاسي لما أرمض بوالسكو هستا الصحة سنة والسكو هستا مسوقية مسوقنا طود أدق باكا شرطة ومحدثين لحتى الله معنيه سنة والسكو هستا حتى هدو سوقنا هذو xasrigiisaasi ma wuxuu ku dhacayaa i'tikaafka daatadiisa iyo sixadiisa ku dhacayaa mise wuxuu ku dhacayaa kamaalkiisa iyadana waa dood fiqhiya waa macnaheedu xadiidka laftiisa dood baa ka jirta oo rag baa si kala u dhigay وعليه maadaama xadiidkii sixadiisina mar ku jiro macnaheedu faa'iideynaya fiqhiga laga qaadanayo doodi ku jirto مسألة أمضوا أي كلا بحشية تاريخيا مساجدة الجماعات كلجوا كذا لجوا اعتكاف الشري هي نصوص طعام كقصة أرورتي حديث كني ما حري كرام ما قيدي كرام بس ما قيدي كرام يا ضاد إيمان نساء الله أعلم لكن سيدا قدال دم بإله حق بدن إن لجوا اعتكاف كرو مساجد الجوامع الأردن وسدح ذا مسجد أين خاص كو أهين اعتكافكو ayaa ila xoog badan wallahu a'lam xukunkeeda sidee buu noqonayaa mar hadii masaajidii la yiri way xiran yihiin ma u banaan tahay dadka inay meelan masaajida ahayn hadii ay masaajidii ta'adur ka yimid meelan masaajida ahayn inay i'tikaafkooda ilaadaan maya jawaabtu waa maya laana i'tikaafku masjid bay ku qeydaan culimadu وانا سيده القران كلفتي اسكو قيدي وانتم عاكفون في المساجد نبينا صلى الله عليه وسلم انت اللي اوغيهي غوريكم اعتكافين بس مساجد بوك اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم سننك iyo diinta ahkaamteeda qaar waxa jira haday dhacaan oo ظروف تيمي درادت أي ماشي وقبحان أنا بديل لهين باجرة قارنا هدي حكم كان ماشي كبحو شرعه وحيوصل بيسي مثل البوسكي سجلها أو لقو بدله مركا هدي مساجد دي لقو اعتكاف واي السنة ونماشي كبحضين نقونيسا أو بوسكي دي يماشي دي تعذرية صروبي واي وبالتالي أن صورتقال أهين عبادات ككلمة كصورتقال كأنبال الصمينية لكن قريو لو اعتكاف معي وهذا مذهب جماهير أهل العلم مذهب كذا